Albert Einstein wuxuu ka mid ahaa saynisyahanadii dunida soo maray kuwoodii ugu saamaynta badnaa. Waxa uu caan ku yahay isla egtiisa E=mc². Saynisyahanadu waxay daraasad ku sameeyeen maskaxdiisa kadib markii uu dhintay si ay u ogaadaan maskaxdiisa iyo qaabka ay u fakaraysay. Sababta ka dambaysa waxay wargeysyadii waqtigaas jiray ku magacaabeen astaantii qarniga. FBI-da Mareykanku waxay xogtiisa ku haysaa fayl qarsoodi ah. Tani waa sheekadii Albert Einstein oo dhammaystiran. Inta aanan mawduucan gudaha u gelin waxaa naga xasuusin ah haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqato channelkeena, fadlan subscribe dheh, gambaleelkana furo, siina share garee si uu u gaaro saaxiibo badan ugana faa'iidaystaan. Sidoo kale inaad qaybta commentiska noogu reebto wixii talo iyo tusaale ah waxay noo tahay dhiirigelin. Mahadsanid. Einstein waxa uu ku dhashay magaalada Ulm oo ku taal dhanka koonfur galbeed ee Jarmalka 14 Maars 1879. Dhowr usbuuc kadib dhalashadiisii, qoyskiisu waxay u guureen magaalada Munich, halkaas oo uu kula koray walaashiis Lisa. Markii uu 5 jirka ahaa ayuu maalin xanuunsaday, waxaana aabihiis u keenay si uu ugu farxo maaweelana ugu noqoto direction compass ama aaladda aynu u naqaan jiheeyaha. Einstein aad ayuu ula yaabay in irbadda aaladda ku dhex jirta ay mar walba dhanka waqooyi eegayso, waana halka ay ka soo burqatay hal abuurka uu dunidoo dhan ku raadeeyay. Einstein waxa uu sheegay in haddii aanu noqon lahayn saynisyahan ay u badnaan lahayd inuu noqdo musician. Waxa uu aad u jeclaa musiga, waxa uuna sidoo kale ciyaari jiray violin-ta. Si ka duwan koritaanka caadiga ah ee ilmaha, Einstein kuma uunan hadlin jumlado buuxa ilaa uu 5 jirsaday. Sida ay qabaan dadka wax ka qoray taariikh nololeedkiisa, qoyskiisu waxay ka soo jeedeen Yuhuud, laakiin waxa uu dhigan jiray dugsi lagu barto diinta Katoliga, kaasoo uu muddo kooban dhiganayay. Sidoo kale waxaa jiray warar xan ah oo ku saabsan in uu xisaabta ku fiicnaa yaraantiisii, waxaana marka ay ardaydu wax ka weydiiyaan uu u sheegi jiray in uu horey u bartay xisaabta ka hor da'da 15 sano jirka. In muddo aabihiis Hermann wuxuu maamulo ka ahaa warshad yar oo kiimikada lagu farsameeyo, laakiin waxaa caqabad ku noqotay inuu sii wado shaqadaas duruufo badan oo markaa ku xeernaa aawadeed. Ugu dambeyntii wuxuu qoyskiisa u raray Talyaaniga, isaga oo rajaynaya inuu helo fursado cusub. Albert oo welida ahaan yar ayaana ka haray qoyskiisa si uu u dhammaysto waxbarashadiisa dugsiga sare. Laakiin Einstein ayaa bilaabay inuu iskuulkii ka saaqido goys, ixtiraam la'aan iyo inuu imtixaanka darajooyin hoose keeno. Waxa uu noqday mid iskuulkii iyo waxbarashadiiba ka fallaagoobay. Mid ka mid ah macallimiintiisa ayaa sheegay inuusan weligiis xataa arkin Einstein oo faraxsan, qoslaya ama ardayda la ciyaaraya. Sanad kadib waxa uu ka tegay waxbarashadii gebi ahaanteed. Waxa uu sidoo kale ka tanaasulay dhalashadii Jarmalka, taasoo ka dhigtay inuu ka baxo shaqadii milatariga oo qasab ku ahayd qof walba oo muwaadin ah. Dhowr sano ayuusan dalna ka tirsanayn oo qarannimada nacay, kana doorbiday in uu noqdo muwaadin adduun. Waxa uuna ugu dambeyntii dhalasho ka helay Switzerland. Markii uu soo gaaray Switzerland, waxa uu isku dayay inuu galo machadka farsamada ee dowladda. Imtixaankii tijaabada ahaa ee laga qaadayna waxaa la sheegaa in uu dhibco fiican ka keenay maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska. Einstein markan waxa uu noqday arday ku wanaagsan waxbarashada, waxa uuna imtixaanka ka galay kaalimaha hore, gaar ahaan maadooyinka sayniska, isaga oo keenay darajada ugu sarreysa ee suurtagalka ah 6 maado oo ay ka mid yihiin fiisigiska iyo xisaabta. Isaga oo weli ku jira halganka waxbarasho ayaa si toos ah loogu oggolaaday inuu ka mid noqdo barayaasha machadka farsamada ee dowladda, halkaas oo uu markii hore arday ka ahaa. Waxaana loo diiwaan geliyay mashruuc macallinnimo oo 4 sano ah, taasoo ku saabsanayd xisaabta iyo fiisigiska. Halkaas ayuuna kula kulmay xaaskiisa koobaad, Mileva Maric, oo ahayd ardayda kaliya ee haweena oo ay isku fasalka ahaayeen. Qoraallo iyo warqado la helay sanadihii 80-maadkii ayaa keenay dareen gaar ah, sababtoo ah waxay daaha ka qaadeen in lamaanuhu ay dhaleen ilmo aan guur ku dhalan, yacni inta aysan isguursan ka hor dhashay. Sida ay sheegtay xogtii la helay, Israel waxay dhalatay 1902 sanad ka hor
guurka waalidiinteed, waxaana soo korsatay hooyadeed iyada oo la joogtay qoyskeeda oo ku noolaa Serbiya, halka Einstein uu ka shaqaynayay Switzerland. Taariikhyahanadu waxay rumaysan yihiin in Laser ay yaraantii ku geeriyootay. Marek iyo Einstein waxaa u soo haray 2 wiil oo kala ah Hannes Einstein iyo Edward Einstein. 1901dii Einstein waxa uu helay shahaadadii ugu horreysay ee la xiriirta baarista fiisikiska iyo xisaabta, laakiin waxaa dhib ku noqotay sidii uu u heli lahaa jago macallinnimo kadib 2 sano oo cilmi baaris ah xafiiska shati bixinta ee dowladda muddo 7 sano ah. Shaqadani waxay ahayd mid uu ku faraxsan yahay marka loo eego kuwii ka horreeyay, ma ahayn mid maskaxiyan adag. Sidaa awgeed, marka uu dhammeeyo qiimaynta shatiyada maalintii, waqtiga u soo haray waxa uu u isticmaali jiray baaritaanka walxaha la xiriira sayniska. 1905tii waxay ahayd sanadkii mucjisooyinka Einstein. Waxa uu qoray 4 warqadood oo sayniska la xiriira isaga oo jooga Jarmalka, waxayna taasi beddeshay habkii iyo aragtidii caalamka. Einstein ayaa yidhi oraah caan baxday oo ahayd, haddii aadan shay si fudud u sharxi karin, micnaheedu waa inaadan si fiican u fahmin. Warqadiisa koowaad waxay ka hadlaysay aragtidiisa la xiriirta iftiinka. Fiisiks yaqaanaduna waqtigaas waxay rumaysnaayeen in iftiinku yahay hir, laakiin taasi micno sidaa u sii buuran maynan samayn. Einstein waxa uu soo jeediyey in iftiinku ka kooban yahay qolqolka photoniska marka uu ku dhaco electronic atomka si ay u abuuraan tamar. Warqadiisii labaad ayaa ku saabsanayd jiritaanka atomka. Waxa uuna arkay tilmaan sheegaysa dhaqdhaqaaq aan toos ahayn marka la fiiriyo qaybaha biyuhu ka kooban yihiin. Waxa uuna ku sababeeyey in aanay tani ahayn random, in biyuhu ka samaysan yihiin atomyo aan la arki karin, taasoo keenaysa in qaybaha biyuhu gariir ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Waxaana loogu yeeray Brownian motion, maadaama Robert Brown uu horay u daahqaaday. Daahfurkiisii saddexaad ee ugu caansanaa waa aragtidiisii ahayd relativity-ga, taasoo aynan macquul ahayn in la yidhaahdo haddii 2 dhacdo ay dhacaan isku mar, yacni isku waqti, dhacdooyinkaasna kala dhacaan 2 meel oo kala madax bannaan. A, B iyo C dhammaantood waxay dhacayaan isku mar, yacni isku xilli. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa inay ku xiran tahay meesha uu joogo, yacni taagan yahay meeting pointigu ama barkulanku. Ama haddaan si kale u dhigno, qof London jooga ayaa bilaabay orod. Isla waqtigaas, qof kale oo jooga New York ayaa orday. Waxayna u muuqan lahayd inay bilaabeen orodka waqtiyo kala duwan. Relativity-gu waa qaacidada adduunka ugu caansan, E=mc². Warqadiisii afaraad waxa uu ku soo bandhigay isla egta muujinaysa tamartu inay la mid tahay tirada inta jeer xawaaraha 2 jibaaran ee iftiinka. Waxaa dhici karta in aad dareemayso waxoogaa caqli ahaan inaynan suuragal ahayn, laakiin Einstein ayaa yidhi ha ka walwalin qaadan waaga maskaxda ee xagga xisaabta. Waxaan kuu xaqiijinayaa in maskaxdu ay weli ka sii weyn tahay. Tamartu waxay noqon kartaa cuf, cufkuna waxa uu noqon karaa tamar. Tusaale ahaan, qaado paperclip si aad u ogaato inta tamar ku jirta gudihiisa. Waxaad ku dhufataa cufkiisa xawaaraha iftiinka oo 2 jibaaran. Haddii aad mid walba oo ka mid ah atomka paperclipka ku jira u rogi karto tamar saafi ah oo aan miisaan lahayn, paperclipku waxa uu noqon lahaa mid awood badan sida babkii burburiyey Hiroshima oo kale. Waxayna saynisyahanadu bilaabeen inay tixgeliyaan in isla egtiisu ay dhab ahaantii suuragal ka dhigi karto samaynta bam atomig ah ama hubka waxgumaada. Waxayna aragtidaasi keentay in Einstein uu helo sumcad weyn. Waxay sidoo kale fursad dahabi ah u ahayd xaaskiisa Marek. Waxayna taariikhyahanadu sheegaan in Marek sidoo kale aad u jeclayd xisaabta iyo fiisigiska. Xitaa waxaa jira caddaymo ah inay ka caawisay saygeeda inuu horumariyo fikradaha qaar ee uu caanka ku noqday. Waxa uuna bilaabay in uu fiisigiska ka dhigo jaamacado ku yaal Prague, Zurich iyo Berlin, halkaas oo uu yaraantiisii waqti ku qaatay waa Jarmalkii. Waxaana dowladdii Jarmalka ee waqtigaas ay u soo bandhigtay inuu la shaqeeyo, laakiin Einstein waa uu iska diiday arrinkaa. Inkasta oo uu noloshiisii xirfadeed iyo cilmi baarista ay si wanaagsan ugu socotay,
haddana noloshiisa gaarka ah ayaa caqabad ku ahayd. Einstein waxa uu u qoray jacaylkiisa dhambaallo uu ugu sheegayo baaxadda jacaylka uu u hayo qalbigiisa iyo waxa ka guuxaya ayuu uga xog warramay, isaga oo sheegay inuu u xiisay iyo sida uu uga fekero mar walba oo uu firaaqo helo. Malaha wax la yaab leh ma ahayn markii ay isaga iyo xaaskiisu aakhirkii kala tageen. Marig ayaa wiilasha dib ugu celisay Zurich, halka Einstein uu ku haray Berlin, waxayna ugu dambeyntii isfureen 1919. Isla markiiba Einstein waxa uu guursaday in adeertiis Elsa Lothal oo uu muddo xiriir jacayl oo qarsoodi ah la waday. 1921 Einstein waxa uu soo saaray aragtidiisii iftiinka, waxaana jirtay in ay ku adkaatay, taasoo sababtay inuusan aqoonsi u helin. Sidaa darteed ayuu muddo 10 sano ah la tacaalayay ka hor inta uusan la imaan aragtidiisa guud ee relativity-ga, taasoo dhammaysay sawirka guud ee laga haystay aragtidiisa. 200 oo sano ka hor Einstein, Isxaaq Newton ayaa daah qaaday aragtida cufisjiidadka, laakiin ma uusan sharxin sida ay u shaqayso. Sidee buu dhulku qorraxda ugu wareegaa? Aragtida guud ee relativity-ga waxay leedahay shay culus sida qorraxda oo kale ayaa keenaya dhaqdhaqaaq, taasoo dhulka ka dhigaysa mid ku wareegaya qorraxda. Aragtidiisu waxay sidoo kale soo jeedisay in iftiinka xiddigu uu qalloocin karo cufisjiidka qorraxda. Haddii taasi run ahaan lahaydna, ilayska xiddigu waxa uu soo mari lahaa qorraxda isaga oo qallooc ku jiro, ama leexasho ayuu samayn lahaa, sida markaan dhulka joogno u malayno. Aragtidan waxaa loo tixgeliyey inay tahay mid aan dhalanteed ahayn, waana taas dhab ahaantii wixii dhacay 1919. Cirbixiyeenkii reer Ingiriis Arthur Eddington ayaa u safray xeebaha galbeedka Afrika si uu u sawiro qorrax madoobaadka, wuxuuna aragtidiisa ku sheegay in qorraxdu ay leexisay iftiinka. Intaa kadib Einstein ayaa mar kale la caddeeyey in aragtidiisu ay sax tahay. Culimada cilmiga cirbixinta ee jaamacadda Stanford ayaa markii ugu horreysay arkay iftiin ka dambeeya god madow, taasoo ahayd arrin la yaab leh sababtoo ah godadka madow waxay leeyihiin cuf isjiidad xooggan oo iftiinku uunan ka baxsan karin. Sababta aan iftiinka u arki karno ayaana ah in godku uu ku jeedo meel bannaan oo iftiimaysa. Einstein waxa uu noqday qof caan ah, isla markiiba waxay aragtidiisu gaartay caalamka oo dhan, iyada oo ay ugu wacan tahay tebinta saxaafadda oo baaxad lahayd waqtigaas. Inkastoo aragtidiisu ka sarreysay caqliga qofka caadiga ah, wuxuu bilaabay inuu u safro Aasiya, Bariga Dhexe iyo Maraykanka, halkaas oo uu lagjarro ka jeediyey, gaar ahaan jaamacadaha Columbia iyo Princeton. Wuxuu daabacay qoraal dheer oo ku saabsan aragtidiisii ugu horreysay ee Maraykanka 1921, isaga oo xusay waxa ku dhiirigeliyey booqashadiisa Maraykanka. Ayuu yidhi, Maraykanku waa saaxiib isku kalsoon iyo didiilo wanaagsan oo aan xaasidnimo oolin. Intii uu booqashadiisii Maraykanka ku guda jiray horraantii 1933, waxaa soo gaaray war uusan ku farxin Einstein, oo ahaa in aanu xilligaas wixii ka dambeeya ku noqon karin Jarmalka, waxaana xukunka Jarmalka la wareegay nidaamkii Naaziga ee uu hogaaminayay Adolf Hitler. Einsteinna aad ayuu u necbaa nidaamka kelitalinnimada. Waxa uu asal ahaan ka soo jeeday qoys Yahuud ah. Majallad Jarmalka ka soo baxda ayaana lagu qoray in uu cadow ku yahay taliska Naaziga, iyada oo ciwaan looga dhigay weli lama deldelin, oo la sheegay in uu madaxiisa hogaamiyihii Naazigu Adolf Hitler dul dhigay qiimo dhan $5,000 Maraykanka ah. Markii uu Yurub ku laabtay, waxa uu ka sii aaday Belgium, halkaas oo uu uga tanaasulay mar kale dhalashadii Jarmalka. Kadibna waxa uu u safray Ingiriiska. Einstein waxa uu dalab macallinnimo ka helay Oxford iyo dhowr jaamacadood oo Yurub ah, laakiin waxa uu doortay in uu ku laabto Maraykanka. Waxa uuna ugu dambeyntii macallin ka noqday Machadka Daraasaadka Sare ee Princeton, New Jersey, halkaas oo uu ku qaatay noloshiisii intii ka harsanayd. Jaamacado badan oo Maraykanka ku yaala magacna leh sida Harvard iyo Yale
wakhtigaas dad yar oo yuhuud asal ahaan ka soo jeeda ayaa macallimiin ka ahaa, taasoo sababtay inay dareemaan takoor iyo nacayb uga imanaya dadyowga kale. waxaana la sheegaa xaaskiisa Elsa inuu soo ritay xanuun muddo ay la ildarnayd, kaasoo ugu dambayntii ay u dhimatay 1936. dadka taariikhda Einstein wax ka qoray waxay sheegaan in wakhtigiisa inta badan uu ku bixiyey in uu wax ka qoro nabadda, waxaana welwel ku abuuray kor u kaca nidaamka faashistaha. wuxuuna qoray warqad taasoo uu u diray madaxweyne Roosevelt 1939 isaga oo uga digaya in naasiyiintu ay ka shaqaynayaan soo saarista bamka atomiga ee wax gumaada. tani waxay keentay Roosevelt oo ahaa madaxweynihii 32 ee Mareykanka in uu dejiyo mashruucii la magacbaxay Manhattan oo lagu horumarinayay hubka wax gumaada ee atomiga. qaacidada Einstein ee hubka wax gumaada waxay ahayd furaha guushiisa, laakiin isagu kuma lug lahayn sababtoo ah FBI-du isaga kuma kalsoonayn. Washington waxay u tixgelisay una aragtay khatar dhanka ammaanka ah, taasoo ay u sababeeyeen xiriirka uu la lahaa ururada u ololeeya nabadda iyo hanti wadaagga. FBI-du waxay isha ku haysay isaga, waxayna ka hayeen in ka badan 1400 oo fayl oo Einstein qudhiisa ku saabsan. FBI-da waxaa agaasimo ka ahaa wakhtigaas J. Edgar Hoover, waxa uuna ku taliyey in si gaar ah isha loogu hayo ajaanibta iyo dadka u soo hijroonaya Mareykanka. inkasta oo ay taasi xilli hore meesha ka saartay wasaaradda arrimaha dibadda, Einstein wuxuu kaloo ahaa shakhsi u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadweynaha. saynisyahan yuhuudi ah inuu yahay ayaa waxay keentay in nacayb daran looga qaado dhanka Jarmalka. waxa uuna mar kale u ololeeyay ka hortagga kala sooca bulshada Mareykanka 1946. waxa uuna u safray jaamacadda Lincoln oo ahayd jaamacad yar oo ku taal Pennsylvania, taasoo ahayd jaamacaddii ugu horreysay ee shahaadooyin siisa dadka madowga ah. waxa uu halkaasi ka jeediyey khudbad uu ku tilmaamayay dhibaatooyinka cunsuriyadda iyo takoorka Mareykanka, isagoona ciwaan uga dhigay cudurka dadka caddaanka ah. ma rabno in aan ka aamusno. hase yeeshee wuxuu u muuqday hadalkaasi mid dhalanteed ah kadib markii la helay xusuus qorkiisa gaarka ah, taasoo muujinaysay nacaybka uu u qabo jinsiyadaha kale. sannadkii 1920 waxa uu socdaal ku maray Aasiya inteedii badnayd, waxa uuna sameeyey qoraallo uu Shiinaha ku durayay. xogtaas la helayna waxay ahayd mid aad uga soo horjeeda muuqaalkiisa guud. 1940 Einstein waxa uu noqday muwaadin Mareykan ah. ka go'naantiisa nabadda ayaana horseeday inuu u ololeeyo abuurista dowlad hal adduun oo keliya ah. waxa uuna markii hore diidanaa fikradaha yuhuudda isagoo ku sababeeyay inay abuuri karto nacayb. si kastaba ha ahaatee, markuu arkay cadaadiska dadka yuhuudda ee Yurub ku dhaqan lagu hayo, waxa uu kor u qaaday qadiyadiisa sahnuuniyadda ee ahayd qarannimo iyo dowlad dadka yuhuudda ah yeeshaan. xiriirka aan la leeyahay dadka yuhuudda waxa uu noqday xiriir bini'aadam ka dhexeeya kan ugu xooggan. waa kelmadihii Einstein ee xilligaas. Einstein ma ahayn mid diinta iyo waxa yuhuuddu aaminsan tahay ku firfircoon, sidoo kale ma ahayn mid rumaysan hal ilaah oo keliya. shakhsi ahaanna waxa uu door biday in loogu yeero agnostic. Israa'iil waxaa la sameeyey 1948. sannadkii 1952 ra'iisul wasaarihii Israa'iil David Ben-Gurion waxa uu Einstein u soo bandhigay jegada madaxweynaha, laakiin Einstein waa uu diiday. 17 Abriil 1955 Einstein waxa uu isku baaray isbitaalka Princeton ee New Jersey kadib markii uu dilaacay xanuunkii caloosha aneurysmka. Einstein ayaa hore qalliin loogu sameeyey, wuxuuna diiday in mar kale qalliin lagu sameeyo, isaga oo sheegay in aanay dhadhan lahayn in cimrigu dheeraado iyo in ay ahayd waqtigii uu dunida ka tegi lahaa. waxa uuna dhintay maalinnimadii ku xigtay. waxaa la sheegaa markay naftu ka sii baxaysay in uu ku celcelinayay dhowr kelmadood oo afka Jarmalka ah. kalkaaliyihii markaa shaqada ku jiray oo qof dumara ahayd ma aynan fahmin waxa uu leeyahay, waxayna u carartay dhanka dhakhtarkii maalinkaa shaqada ku qornaa si ay ugu sheegto, laakiin intii ay maqnayd ayaa naftu ka baxday. waxaa la sheegaa in Einstein meydkiisa la gubay, dambaskiisana lagu firdhiyey meel qarsoon, gaar ahaan webiga Delaware. dambaskaas la daadiyeyna
kuma jirin maskaxdiisu. khabiir psychologiga ku takhasusay oo lagu magacaabo Thomas Harvey ayaa maskaxda ka saaray si ay saynisyahanadu wax uga ogaadaan maskaxdiisa iyo qaabka ay u shaqaynaysay. laakiin xubnaha qoyskiisa ayaa arrinkaa walaac ka muujiyey maadaama aan waxba laga weydiin. waxayna ugu dambayntii dhaqaatiirta iyo saynisyahanadu heleen fasax ah inay baari karaan maskaxda Einstein. waxaana la ogaaday in ay ka maqan tahay qaybta kala xadaysa maskaxda ee loo yaqaan lateral sulcus. saynisyahanadu waxa kale ay rumaysan yihiin in neerfayaasha maskaxdiisu isticmaashay tamar aad u badan sababtoo ah waxaa maskaxdiisa laga helay percentage aad u sarreeya oo glial cells ah, taasoo quudin, taageero iyo difaacba u ah neerfayaasha maskaxda. waxaana baaris kadib maskaxdii Einstein laga dhigay dhowr qaybood iyadoo lagu kaydiyey dhalooyin loo sii diyaarshay. waxaana la dhigay museumka weyn ee Philadelphia. waxaana xusid mudan in periodic table-ka shaxda 99aad isaga loogu magacdaray ilaa iyo haddana caalamku u yaqaan Einsteinium. Einstein waxaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah culimada sayniska ee taariikhda soo maray kii ugu saamaynta badnaa, isagoo beddelay aragtidii laga haystay wax badan oo dunidan guudkeeda saaran laakiin aadamaha ka dahsoonaa.